السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا البرنامج كينا ما أنت برنامج كحوال دون إن شاء الله تعالى قيبتي سلوات فكشة قيبتي سلوات والله يقانو user defined function وحاول وصل لنا built in functions ما أنت وحكى لنا إن شاء الله تعالى user defined function user defined function وحلا function هذا أو ورطو user ككاسر وحلو يقانه user function user defined function وحنو وفكشن لو الله قرأ قيب كمية البرنامج كاسو كوفلنا هول جارة سدح user defined function وحليه سدح قيب function declaration function definition iyo function calling function declaration وحكى له يقانه prototype function declaration وحلو قرأ مينك كوركيس على قرأ function declaration وحنا وشيء يا compiler كأيو حسينا information oo ku saabsan function-ka ayuu compiler-ka ayuu information siiya function definition waa meesha saxda oo function-ka lagu qoro function-ka code-giisa meesha lagu qoro waxa loo yaqaanaa function definition marka la wacayna waxa loo yaqaanaa function call okay waxaan qaadanaynaa insha Allah taala labada program inta qaadan ka hor marka function-ka waxa uu qeyb function-ka wuxuu noqon doonaa afartan middood function leh function aan lahayn waxba uu soo celinayno no return type ah waxna aan qaadanayno ah no arguments function noocaas uu noqon kara waxa kale function ka noqon kara no return type wax oo return type ma lahan karo laakiin wuxuu qaadan karaa argument sidoo kale function ka wuxuu noqon kara wuxuu lahan karaa return type laakiin ma lahan karo wax argument ah kan ugu dambeeyo ah labadoo yeelan kara return type na uu yeelan kara arguments na uu yeelan kara حسمينا أفرتاس أو كلا بفكشن كأي واحد مد والبوحن كمد وحكا عندنا إن شاء الله تعالى هال إكسامبل وعوري فكشن له فكشن عليهن واحد ريتان تايب واحد بس علي ما وحنا أرجومنت ملا بروجرام كوريسو حنقورينا حنقول ربعنا صوبان لجنو مسجنا سكرين كصوبان لجنو أنا باستعمالنا فكشن كاس إن شاء الله تعالى واحد ريتان تايب ملا عندنا واحد أرجومنت أو بارامترز ملا عندنا waxaan kaloo sameeynaa waxa isku direynaa laba number anaga isticmaalana function-kaas ma laha doono wax ritaanka balse wuxuu qaadan doonaa arguments labada dhima insha Allah taala labada program soo socda ayaan ku qaadan doonaa aan furo barnaamijkeena date kan soo qaadanaa هنقارن هيدر فايلات اوكي function declaration function ka aan si declare gareynayna function ka marka declare gareynayna waxaan sameeynaa function kan maadaama uu san lahayn no return time maadaama uu lahayn food hadoo function ka food aan ka bilaabana waxaan sheegaynaa magaca function ka oo leeyahay print this aan iska dhahayna magacu lahaan doono argumentigo qaadanayna wax argument ma lahan waxa loo yaqaanaa food markuu argumentin leena siina food aan si waxa loo yaqaanaa intaas function declaration okay inti main function call waxa lagu marka la wacayo waxa la sameeyaa waxa lagu qoraa minka dhaxdiisa prints aan dhahnay waxba kama gelinayno maadaama lahayn marka waxaan soo hartay function definition waa code meesha lagu qoran lahaa waxaan dhahnay function definition wuxuu lahaan doonaa sida function declaration ka ah for prints ayaan sameynay kadib waxa ma siinayno void aan iska dhahayna hadda sameynayna marka waxaan noo soo bandhigaa code ku waxaan ku soo qornay inaan noo soo bandhigo hello world shaashada waxaan rabnaa in nagu soo bandhigo hello world aniga adeegsanayno function okay waan save gareynayna function CSS qorno okay haddaan programka marka hore oo la compare gareynayo up to down ayuu ka bilaabanaya marka hore wuxuu soo jeegareynaya inta halkaan markuu arko oo jeegaray gudaha ayuu soo tagayaa prints markuu sameeyo si toos loo wuxuu soo aadayaa
function kana uu soo aadaya function kita laga wacay ayuu intuu imaanaya kadib print in hello world ayuu akhrinaya kadib walaaban markaas la execute gareyn markaas waxaan rabnaa inaan ugu soo bandhigo hello world print ayuu diiday print f al ra function ku yahay print f print nifto print f meesha afkaasan ka tagnay aan daaran garan saa u jeedaan waxaan noo soo bandhigay hello world anigoo adeegsanayno function okay function kan waxa la ma lahan waxay tahay ma laha waxba ii soo celinayo laba wax argument ma siino ford inta ford waa ka tagi kartaa meeshan waa waxba ma ku qori kartid waa banay kartaa dada isku karano isku jawaabta waa soo baxsana okay waxa kale rabaa waxaan rabnaa program kaasoo noo soo bandhigayo laba lambar in isku darno anagoo isticmaalayno function kan no return type wax return type uu soo celinaa ma laakiin wuxuu qaadan doonaa insha Allah taala arguments okay laba lambar isku dirayna Soomaa marka hore no return type maadaama uu food ku agtay food meeshiisa ku reebana sum function name waxaan ka dhiganaynaa sum wuxuu qaadan doonaa insha Allah taala laba parameter nooc oo si sheegaysa ma waxa rabtaa laba parameter qaadanayo ma numbers maarta ma xaraf maarta inuu ku soo bandhigo wuxuu ku soo bandhigaa rabto ma float tiro jajab maarta inuu ku soo bandhigo ma aanay waxa rabna tiro oo ah tiger inaan laba tiro caadi isku darno marka sidaas tarteed waxaan u baahanaanay wuxuu qaadan doonaa function kan waa laba integer waxayna qaadan ma hadaa character aad soo geliso marka aqbalaa wuxuu kaliya aqbalaya laba integer okay calling ka imaanay aan definition ka qorno marka hore definition ka asigana wuxuu qaadanaa dhaanay function name ka sidoo oo function declaration ka waxa ku soo sameeyay ayuu qaadanaa food sum okay inta marka waxaan soo sheegnay laba integer ka qaadanaa integer waxa u baahan tahay variable lagu kaydiyo qiimaha oo xagga laga soo sii doono marka x y aan qaadano labada number okay gudaha soo galnay waxaan declare gareynaynaa s ama result aan iska dhaxlo aan ku kaydinayno natiijada okay s waxay la eg tahay x plus y kadib waxaan soo bandhigaynaa print f sum equal percentage d comma result okay function calling ka tagni function call marka la sameeyo waxa loo baahan yahay magaca oo leeyahay oo wato function ka magaca wato waxa la sum wax muu soo celi doonaa haduu wuxuu soo celinayo inta ay ku sheegay laakiin hadda wax muu soo celi doono waxaan sameynaynaa sum oo kaliya function ka wuxuu qaatay laba parameter maadaama uu qaato laba number ay u baahanayaan labadaas number isku dira asa wuxuu sameeynaa isku dar okay 10 iyo 20 oo kala qaadan 10 iyo 20 ka x waxa lagu shubaa 10 y waxa lagu shubaa 20 result marka waxa la egtaa x ko noo wado 10 iyo y da noo wado 20 kadib result yaa lagu gudinaya result wuxuu noqonaa marka wuxuu noo qabanaa 30 ko noo soo bandhigaya markaas labada tiro isku diray ayuu 30 ko noo soo bandhigaya marka hore waxaan soo declare gareynay waxaan soo declaration ku sameeynay function ka waxaan dhahnay waa wax return type wax weyn soo celin laakiin laba argument qaato ama laba parameter saar qaato labadaas parameter aan naqdaan integer labada parameter integer ku waan siinay sum function ka waa wacnay laba parameter u baahan labada parameter 10 iyo 20 si automatically markuu function ka timaado labadan tira ayuu qaadaya x wuxuu ugu shubayaa 10 y wuxuu ugu shubayaa
labaatan kadib resultiga meesha resultiga ku shubi lahay resultiga diyaarsada resultiga lahay la mid noqoto x oo ii heeso 10 y oo ii heeso 20 hadii la isku daro kadib waxay ugu shubtaa dhahay resulti wuxuu yahay sababta 30 iyo haya ii soo daawac marka resultiga waxa laga soo daawacaya 30 function ka waxa la function no return type wax return type ma leh laakiin wuxuu leeyahay parameter ama arguments okay aran garano ishaan waxaan ka tagnay semicolon ka sadoo ka maqayahay ma ogolaana function declaration ka mar walba wuxuu leeyahay semicolon ugu dambeeyo okay aran garano marka meeshaan adiga sigana waxaan ka tagnay semicolon okay sum equal 30 sum wuxuu la ekaada 30 waxaan soo qaadanaa marka function aan lahayn wax return type aan haddana lahayn wax argumentiya haddana waxaan qaadanaa function leh argument laakiin return type aan lahayn insha Allah taala labada dhiman insha Allah taala programmada soo socda ayaan ku qaadan doonaa si aad barnaamijka ugu xirnaato fadlan barnaamijkeena subscribe leh asxaabta jecesha inay barato barnaamijka programming language la wadaag oo ku meesata daawashada barnaamijkan tan iyo mar kale ana dib u kulmi doono hada billahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.